yarkii Diljod Dasan neefta ka soo fuqday sababta gudiga filimada Hindi ama ururka xirfadlayaasha Hindi waa ka fuqeen kadib markii directorka caanka Bhushan Kumar uu bariyo gudigaas oo dhawaanimayahow meelan ka laaban ma joogno boodhar lacag fara badan gashay 300 karoor ka badan shaqadii waa socotaa ma saari karno naga bootiye waxa lagu haystaa Sardar G3 inay ku jirto gabar Pakistani Haniya Amir laakiin gabadhan Pakistani Hindi intaas isku dhaceen dagaal galin ka hore filinka duubtay balse sidoo u hadla xoogaa Diljod Dasan kabadbadis ahayd iyo qaabku taagtaag uu keenay filimkiis Hindi lagama daawan waxa laga daawado suuqada caalamka asi wuxuu ku dooday war gabadha mar hore filimka sameysay filimkeena uu soo baxaya hadaan gudaha Hindi laga daawanay xitaa wuxuu dhahay munjabka oo diasporada filimka daawanaya black pastor noqday hal toddobaad uu 25 karoor 30 karoor ku soo xareeyay saasay laakiin waa lagu dhagan ninkan waxa la team border filimka haduu ninkan soo galo waa ka mamnuuca adiga waan badan oo gala Bhushan Kumar tii series madaxu baryotan waa in barya ay qalay waa laga qalay markii dam hadda waliba waxa la 80 ilaa 85% filimku waa duubayan haddana shaqooyin culus socdo meel Diljod looga saari karo ma jirto saadartay marka hadda ninkan waa laga foqo at least si uu filimka u dhameystiro Sunny Dol iyo Farun dhawaan ahan sheet la jilayaan waana film aad u weyn oo lacag fara badan gashay soo bixi doona saaka warqabno 23 Janaayo 2026 soo baxa anu ragsin director ayuu ka yahay